magaalada Balibusle ee gobolka Mudug waxaa maanta si weyn looga tukaday munaasabadda Ciidul Fidriga. Masaajidda kala duwan ee magaalada Balibusle ayaa dadweynuhu soo buux dhaafiyeen maantay. Masaajidka Tawxiid ee magaalada Balibusle ayaa kamid ahaa masaajidda dadweynuhu soo buux dhaafiyeen. qaar kamid ah shacabkii maanta isugu soo baxay weynaynta tukashada salaada Ciidul Fidriga oo aan mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa la hadlay warbaahinta wadaagsin media iyagoo bulshada la wadaagay farxadda iyo reereynta Ciidul Fidriga. meesha waa deegaanka Balibusle ee maanta si wanaagsan baa looga iiday aad iyo aad aan ugu faraxsanahay baan uga iidnay ilaahay baa mahad iska leh soonkii waa soo soonnay alxamdulilaahi rabbil caalamiin si wanaag iyo si barwaaqo iyo nimco ilaahay waa noo roobeeyay deegaanka oo aan khilaaf lahayn si wanaagsan oo aad marxabayn u ah baa loogu iiday ciidiis faadan baa leeyahay haye munaasabada ciida ka waran maanta Balibusle ما شاء الله عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير aad baa halkaan diidi la isugu raacay oo loo wada iiday si fiican baa loo soomay dadkoo dhan waa faraxsan yihiin ciyaaladii dumarkii reer miyigii iyo magaalada inta joogtay intaba si wanaagsan bay u iideen maanta farxad weyn baa magaalada ka muuqata ilaa 3,000 oo qof oo magaalada joogtay baa maanta farxad isugu soo baxday si fiican u iideysa marka ciid mubaarak aad oo maastaa maxaa ugu baaqaysaa ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyn ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa ilaahay barwaaqo roob buu siiyay ilaahay karoorihii waa ka ilaaliyay safmar buu uga dhigay ilaahay colaadihii iyo balaayadii uu ka damiyay badanaaba inay ilaahay ka baqaan oo xasuustaan oo ilaahay baryaan nooc walba ilaahay u bari karaan inay ilaahay u baryaan baan muwaafaqo iyo midnimana ay raadiyaan baan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa insha Allah aad baa munaasabada ciida ka waran maanta Balibusle iyo sida looga ciiday iyo adoo faalo kooban ka bixinaya ما شاء الله الحمد لله رب العالمين وهو إلهي بقى مهد له إنه عيد إنه يرجليه يوسيد الجن أو ما أعرف إلهي إنه يوفو زيي كليه وحنا أقول بقى قيادات كصومال الملك شوقان بقى إن إلهي يقول لابتان على الله إسكدايان ديك إسكدايان بوبك إسكدايان لا تكفي عن ترى لو ديبتان إلهي كتاب كسر عنته من تكوك بصدان اسكون معمولان دولة فدرالك iyo gobolada dhan Soomaaliya midnimada ayaan ugu baaqayaa Soomaaliya midnimada ay sharaf ku leedahay banaanka midnimada sharaf ku leeyahay shantii Soomaaliyeedna aan raadino siday ahaan jirtay Soomaali aynu dib ugu noqono ilaahayna aanu laabano subhanahu wa ta'ala dibka Soomaaliya ka dhacayana inaga wadno inaga isku keenay ilaahay aan uga laabano ilaahay uga toobadkeeno gacmaha is qabsano is caafina wixii hore iska caafino wassalaamu alaykum wa rahmatullahi aad oo jirnaa munaasabada ciida bulshada aad u faraxsan yihiin waa u jeedaan dadka dareenkooda aan rabnaa inay la wadaagaan shacabka kale ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan soo dhaw magaca ku bilow ما شاء الله magacaygu waa Cabdikheer Axmed Xirsi aad iyo aad maanta Balibusle si wanaagsan baa looga ciiday alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh waxa weeyaan farxadaas na gaarsiiyay bishii Ramadaan markaan soo dhamaysanay kadib ilaahay baan uga mahad celinaynaa guud ahaan magaalada Balibusle si wanaagsan baa looga ciiday ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan uga hambalyeynaa bisha waxa weeye ciida maanta ciida alxamdulillah waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed maxaa ugu baaqaysaa munaasabada ciida awgeed maxaa fariin ahaan ugu soo jeedinaysaa ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ugu horeyn hambaliyo marka xigtana waxaan leeyahay qaranka Soomaaliyeed si toos ah loo ayay ummadda midnimada qarannimada deeqda dawladnimada deeqda mar baynu kufnay mar labaad yaynaan kufin insha Allah aad baa maasanta oo mataqaana mustaqbalkii dalka ah maxaa fariin ahaan u gudbin lahayd shacabka Soomaaliyeed munaasabada ciida awgeed waxaan u gudbin lahaa ciid mubaarak ciid wanaagsan dhammaan meel kasta ay ka joogaan dunida daafaheeda ما شاء الله عليه عيد مبارك بلو بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Bashiir Cabdullaahi Yuusuf ku magacay Istoosi maanta waxaan joognaa Balibusle si fiican baa lagu ciidayaa dhammaan ummadda muslimiinta ana guud ahaan deegaanada kala duwan ee Puntland ayay dadweynuhu dhameysteen 30ka bisha Ramadaan iyadoo maanta oo xada laga wada ciiday si dhameystiran guud ahaan deegaanada Puntland Samafale Cabdi warbaahinta wadaagsin deegaanka Balibusle